ayaan tallaabay waxaanu ahayn 12 arday oo laba hableeyeen Faisa Sayare Faisa Maxamed Cali iyo Farduus Saleeman Cilmi waxa walaalahayn jawaar loo jiro BBC ka hadli jirtay labadii imka dibadii ku maqayeen tabarkii markii aan soo dhamaysanay muddo dagaalkii xuduudka ka socday maalinba inaad garanayso iyo labaad garanaysa dhimashadooda ayaa waxa yara dhacday war aynu bal gudihii gallo hadeen meel ku dhimanayno aan gudaha ku dhimanno dabeetana fikradaas hadana na gashay waxaan markaa bilownay inta magaalooyinka la soo galo in dhalinyarada lagu tababaro oo tababar la siiyo oo inankii isna difaaci karo qorigeena ridi karo tiiman markaa halkan ka bilownay waxa markaa ka hoggaan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Arninka la yiraahdo ayaa ka hoggaan iyo Cabdirasaaq Axmed Cumar Juxo Allah naxariis jannaha ka waraabiye oo qaali isna aad u qaali ahaa halkana markaa ka bilaawno hawlgaladii horeysay marka in badan baa wadayaashu yiraahdeen waxba noo soo joognay waxaan soo joogiyay sanamaani jirin ba oo hal gaari leh laba gaari lahaayeen mid uu watay aadan Saleeman loo jiro Land Rover ah iyo gaari jaadlaha oo labis teedka laga aftoobay gabil agteeda boardley meesha la yiraahdo soo custom kama hayn boardley custom ka jirtay kala laga aftoobay kala beregteeda ma inay meel yar kale laga boardley loo jiro laga aftoobay markii dambana deeyadu aan isba garanay waan soo joogay waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo waxaan daba yar idinka sheegay waxyaabihii aan la kulmay sax galbaha kamid ah Hargeysa soo galay oo aniga Maxamed Axmed Xaashiya Ali Cabdi Cabdillaahi oo loo yaqaan Ali Cas imkana barsaab ku xigeenka Gabili iyo loo dhigay Maxamed Aadan Nuuriyay Ibrahim Maxamed Cismaan Shumburo labaduba way dhinteen mid dagaalkii buuruhu ku dhintay midna hawlgalka kale ku dhintay oo isna xaggan xadka ayaa hadii jeer magaalada waxaan ku soo gali jirnay fiidka hore soo gali jirnay inta ka horeysa dagaalka 12ka ee fiidadooga sababtoo guryaha iyo xiriirada gudaha ayaa waxa mas'uul ka ahayd Safiya Xaashi Madar oo ay la shaqeyn jiray hablaad fara badan oo mayma inaan la yiraahdo Nimco Maxamed Yuusuf Maxamed Axmed inan kale oo ina daahir jaamaca Fahiima daahir jaamac oo hablihii marka halkan aan ku tababarnaa sax marka damana iyagu hablaha iyo dhalinyarada si tababari jiray sax marka Safiya Xaashi leeyahay suurtagal ma ahayn xilli dambe gurigeeda maadaama ninkii aanu isna hawsha aad ku jirin waa gartay dabeedna fiidadoogaasaan soo gali jirnay oo Safiya Xaashi fatixda kirada guryaha iyo wixii kharash ku baxay intaan joogno iyada hayso mas'uulka ahay Jabuuti laga soo diri jiro qadiima Allah naxariistay sax iyo qolooyin kale qadiima lagu soo gaajin jiray qadiima halka soo diri jiray marka waxaan soo gali jiray magaalada intaan dadku saaxan laba arrimood baan idinka sheekeynayaan kala kulmay gudaha habeen waanu nimi Safiya noo keentay alaabtii islaani ayaa baahay qabeebayana faatixdii iyo fiinus noo soo qaatay Safi 10 kun oo shilin bay na siisay waan ka tirsahay oo haysta 10 kun marka lacagada aad far badan bay ahayd alcaasa jeebka ku rirtay 10 kun masaajidka la dhaaf boqol jirka siis yaro xaggan ka xigay aan dhisnay maan ku fadhiisan jirnay ku sugi jirnay 10 kun halkii bay kaga dhaxalay